qofku markuu yar yahay uu inuu faamilkiisa iyo waalidinta ag joogo unba ugu fiican inuu meel uu nolol ku qaadanayo. chance ka to dheeraada helay xara marka hal mar inaan ninka laba su'aal isticmaalo saxaw su'aal ku weydiinaa ay jawaab su'aashkood waxaa mataqaanaa صاحب قاموا صاحب سؤال باجرتني وعند معصنا هر dadkii inaan weydiiyo Soomaalida maxaa isleedahay asalkooda xagee baa ka timaaday Soomaalida qiimaha asalka Soomaalidu banaanay meel kale laga imaanay ma jirto صح wixii ka horeeyay ma ogid qofka kun baa loo dikraa marka wallahi kulli dadkii intooda ugu badan ma aragtay dibka jira wuxuu yahay su'aashaas isku dayay inay uga jawaabaan laakiin su'aasha rabaa inaan ogaado waxay tahay mataqaanaa qof walba wuxuu aaminsan yahay asalkiisa inuu meelo kala duwan oo ka kala imaaday Soomaalida inta ugu badan waxay dhahaan Arab ya su'aashan marka Cabdullahina jawaabta ma aad ma fahmin ku celin laakiin su'aashan ina weydiisid hunda bisanta waxay u baahan tahay ina weydiisid dadka waaweyn kaasoo kale ina weydiisid sababtoo quraanka uu sheegay annaga waxaan dhahnaa maxaa abeena ahaan jiray Soomaali Soomaaliya su'aalaha لكن أبي هنجر صاحب أنت ما شقيسو وحال راه متقنا إلا هذا دونك علمي على الجاري مو صاحب علمي على الجاري وحيابي على بارا أنا وحال أركب متقنا إن ساينتيستيال بدن أو تاجن ما أعرف كلا إيجو أصل كلا قفل فوق هل صوب لوضي أنا وحكون الشيء بربرة مجال بربرة اللي يرادو وقوي الصومالية أوكي قبل كذا مرودي جح قبل كمرودي جح بيد نورمال في سكتر سنت حلي والله وين صح ها والله تطبع هذه لكن هذا يدي بقى ستيل أو قبل بنك وضع معنا قبل جوني أو يدي بقى قبلها لكن كرن ما إنه سومالي لا نم بقبل الطهي ولا دولة فدرال كاوما I don't know شوت أوت مرود جاي عليك هذا أصل كاغو حق سويدا أصل كيف Soomaali أوكي Soomaali أنا حاسس لا حاجة بك سويدا أنا أصل Soomaalidu أصل كوجنا Soomaali هذا بك سويدا صح ما لكن سدد كل دوين أنا كلية ما Soomaali بدنا حاجة رتوجي ما نحكي ما ناي قارده kuwaas waa kuwa yaban ka yimid laakiin anagu dhaladkayga dhulka Ilaahay nagu beeray ee Soomaaliyeed baan ku dhalanay aabahay ka uu xagaas ma ku dhalan ee yaban iyo faracay waxa ma galaba iyo Itoobiya iyo dadka Yuhuud baan ka soo faracanay waxa waan ma wallahi dad taas taagan aan maqlay Yuhuud baa ka imaan ma aaminsinin okay shaqada ma okay laakiin xasiida soo saddexaad waxaa mataqaana hadii aad meel ku dhalanayso ma aragtay oo adiga go'aansan karto xagee baad jeclaan lahayd inaan Soomaaliya ku dhasho Soomaaliya ku dhasho صح hadii adiga go'aansan karto ana haddaan go'aansan karo Ilaahay kasoo waaw haddana Soomaaliya ku dhalatay haddana Soomaaliya ku dhashay ma sha Allah nice lolo صح su'aal kale oo dheeraad jiro laakiin waan isku imaan doonaa oo ma sida waqtigaaga okay su'aasha labaad waxaa mataqaanaa qaaradee baa 10 sano ugu horreysay ku qaaday 10 sano ugu horreysay de qaaradaydii wadankayga ku qaatay oo qaaradda Afrika wadankaygu ka mid yahay صح gaar ahaan Soomaaliya oo ku qaatay 10 sano ugu horreeyay si fiican maxay marka ay kaga duwan tahay isleedahay meeshii aad ku badbaatay iyo meeshan aad kaga duwanaanshaha dhacdo يا inaad kaamirada isku hadisaabe markaad kelmad dhaleed ma markaad soo galaysaa waxaad inaad soo saartaa soo saartaa okay su'aasha labaad waxaa mataqaanaa saaxib saddexaad bay noqonaysaa umaleena tobanka sano ugu horreysay waxaa ku qaadata Afrika haddii adiga aad dooran kari lahayd intee baad jeclaan lahayd tobanka sano ugu horreysay aniga haddaan dooran lahaa oo aan jeclaan lahaa wallaahi waxaan dooran lahaa kulley meel igaga fiican meeshii aan ka soo qaatay u malayn maayo meel kale oo la mid ah inaan dooran lahaa because qofku markuu yar yahay uu inuu faamilkiisa iyo waalidinta ag joogo unba ugu fiican inuu meel uu nolol ku qaadanayo marka meeshii ugu fiicneed oo ka soo qaatay meel kale oo arjayn lahayd may jirin markaa ma ay jirin leeyahay mustaqbal wanaagsan no ma ay jirin marka halka hooyaday ku nooshahay u baan ku noolaan lahaa okay meel kale haday ku dhalan lahayd meel kale haday waalidka ay joogi lahaayeen dhib nice والله Soomaalidu dad wadaniyiin waa sax ana isku habeeyay sax والله your own baba taas kaliya waa jarnay aniga macatamaha wadiga erkaydi kulli maxaatimaad ka hayda mar jaranaya kaliya ma duubin laakiin duubtaabe laakiin ma aha inaan ka jaray master Cabdullaahi Kham walaalaha Jarmalka waxa weeye ayaa qadaadka dambana ay saxay okay qeybta adiga boqolkiiba 90 ka dambe laga caawiyay